هذا كور مركا دهيس نوانka Soomaalida sawir la qaawan yahay ama naas qaawana wax weyn la yahay aan saashadaha soo saarana igu soo dhacday saake ha soo anigu hada kor idama dhin aan laba qof oo ishuminaysa wax weyn la ahno profile-ka kulligeen naasahan soo wada saarana soo aniga idin laha ilaa dadka waa dad xanuunsan waaye wallahi waa ku cusub taa sheeko ku cusub waa intan maya waxa ku si cusubba oy raadiyaan qofka sida tusmo kale marwada oo sharafta leh waxay raadiyaan wax yar ay ku difeetayaan mugto laakiin her on husband sawirra isla galeen oo ugu jiro telefoonka qof kasta haysto sawiradaas oo telefoonka ugu jira wax weyn ma aha qof kasta haysto maxaa hadda waxa wax weyn looga dhigaa oo laga jabsaa telefoonada islaamid wallahi waa yab sheekh Rushaye asoo soo raaciyay raadiyayeen waxay ugu tageen telefoonkiisa waxay ugu tageen shumiski oo walaalaha asoo xaskiisa shuminaayo shumiski walaalaha waa taqaanin ma waa alaabta oo daanka macda dhabanka waa shumiska walaalaha waa ka dayri waayeen kii shumiska walaalaha soo qaateen bal ka sheekay idin social security iyo drive license ka sheekay adduunyada ilaahay dadkaas inay information raadiyayeen oo wax fiican la yihiin waxa ayaga calasaan anfaca inay la yihiin social security iyo drive license iyo ala soo dhigaa ka war wallahi gablam markaasayba fashil ku dhamaaday wax la haay male fashila ku dhamaateen ku dhaka dhamaada umada ilaahay Sofia Tusmo waa hooyo waa maamo sharaf leh yaa cisi karaamo leh ninkeedi xalaasha u ahaa sawirro ay isla galeen oo ugu jira telefoonkeeda dadka fashila ku dhamaateen ku dhaka dhamaada umada ilaahay Sofia Tusmo waa hooyo waa maamo sharaf leh yaa cisi karaamo leh ninkeedi xalaasha u ahaa sawirro ay isla galeen oo ugu jira telefoonkeeda dadka irsaaqad ka raadshay shuuba idin dhashay shuuba dhashay ka dhamaada dadka ka dhamaada wiclaatiina ya waxay idinka gayn weysay social security iyo drive license ka warrab idink ya waa niman dhilooyda waa niman shuubooyina iyo naaga dhilooyina nacalla idin was farxiyo nimanka dhilooyda ha nimanka xataa aniga shuubaan ugu wacaa shuubay hayaan dhaa ilaa ku dhash ka dhamaada maamada wicelayo ilaahay irsaaqada meel xul idinka gali telefoon qof bilaadan uu leeyahay privacy-giisa asaga odageeda isla joogan soo xadxaday snapchat-deena waa buuxsameen kii farxiyo luuqa waa waxaan idin sheegaa canjeelo iyo dalac bilaash kadib waxaan idin sheegaa horta subaxay noo taa quraacanaynaa wax dhibahoo jiro oo hadda maanta Sofia Tusmo anigu aan dhihi karo waa u geysateen wallahi uma jeedo qolooyinkii waxaa sameeyay ama Sofia telefoonkeeda sawirro ugu jiro private had soo qaadateen oo nin ayada qaba iyo ayadu ay ku wada jiraan wax la sii bumbuuniyo wax laga dhigana ma aha waana la weyseen taas laakiin waxaan idin sheegaa dadkii cafi waaye Sheekh Rushaye gabar yar oo qabo inta telefoon qaadato meel samaysa geysatay kii sameeyay inta baarayo telefoonkii baartay oo wuxuu wax kale markuu ka waayo wuxuu ugu tagay shiiqiyo gabartii shumiska walaalaha shumihaayo shumiski walaalaha shiiqiyo gabarta shumihaa shumiska walaalaha waa ka dhabanka daanka ka dayri waayay kiyo soo dhigay ta jabsado kala baxa marka dadkii Sheekh Rushaye oo xaaskiisa shumiska walaalaha shumihaya shumiska walaalaha la yiraahdo oo shumiska respectiga la dhahaa shumiska oo daanka la iska shumiyo iyo shumiska sujuudda la iska shumiyo iyo waa kan oo walaalaha iyo respectiga ma aragtay waalidkoo kale iyo ya meelaha laga shumiyo dadki ay ka geey weyday iska dhaafi waay kan xabad ka dhaafi maysiine kan kuma dhaleecay kartiin iska daaya dadki garan waayay oo waliba qof samaysaya telefoon farsamo yaqaan telefoon loo geystay oo sameeyayo aaya ma dadka noocaas ah waxay cafiyayaan Tusmo oo fanaanada ya ana soo wicina qaxbada marka shuubooyinka iyo dhiloodinka ka dhamaada Tusmo wax daranaatiina wallahi Soomaali xalaasho waa ku yartaa inta xalaasho lagu dhalo waa ku yartaa Soomaali nacala abuk way kulligood say u badan yihiin inta samaha jecel kor Allah ka dhigo waa tahay daawadayaal taasi waxay ahayd fanaanada Farxiyo Kaba Yare oo kelmadeeda ka dhiibanaysay Sofia Tusmo oo saakay la jabsaday arrimii privacy-ga oo ahayd iyadoo laga soo bandhigay iyada iyo xaajigeeda sawirro iskula jiraan oo iska normal ah wax weyn ahaayeen ay la wareegayaan suuqa taasi oo fajacayaan firir la noqotay ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa
inay ka waantoobaan oo iskartaan ay dhibaatada ka daayaan gabadha Soomaaliyeed waana la heli doonaa hadii la baaro locationkooda iyo meesha ay joogaan iyo meesha laga soo galay waa la fahmayaa markaas unbuu la xisaabtami doonaa xisaabtan baa ka dambeyn doona ramburiyo hees ahelo iyo cayaar tabaya haybadiyo hadhaale baanu hindisnaa ahurdadan ku yaalka hayraan naftayadan